dagaalkan oo ahaa mid ka xooganaa dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay koonfurta gobolka Mudug ayaa maanta deegaanka Jeexjeex waxa uu ku dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab oo dhinaca dagaalka maanta oo ahaa mid ciidamada gorgor ay ku qaadeen fariisin ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay goobtaasi ay ku dileen maleeshiyaad badan oo ka tirsan Al-Shabaab sida ay xaqiijiyeen saraakiil ku sugan goobta dagaalku galinkii hore istaagay ayaa mar kale dib u bilowday abaar 8 saac galabnimo waxaana dagaalka ku soo biiray ciidamada daraawiishta dawlad goboleedka Galmudug Jeexjeex dhul ahaan waa dhul hawd iyo buurley isugu darsaday isla markaana ah meel istiraatiiji ah oo adag tahay in laga saaro dhinacii la wareego ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ayaa hadda kaabiga ku haya magaalada Caad oo ah magaalo istiraatiiji ah oo muddo badan ay ka talinayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana sidoo kale wararka halkaas ka imaanaya ay ku darayaan in shabaabkii jooga halkaas ay ka baxeen tooska meesha cadda saaranay iyo ilaa bariga saa u soo gala diyaaladmo dhanka galbeedka iyo koonfurta